السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصومالية والسلام كون سلوا دمان أمد الصومالية والسلام يا سلام الإسلام قاعد السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركو الرسالة كان واحد تعصيب قدر يا الإيران الصوماليات اليو بوليس دول كود الدفاعية أمد الصومالية حدود دول إيران يا قاعد ماذا اللي يقول هي المركو الرسالة حلا إلى ونحرسته dadka ka dhinteen waxaan leenahay ilaahay samri iimaan ka sii leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed reer Soomaaliya isteeda dhibatay gaadmada lagu dilay labada degmo lagu laayay yeeta iyo aad waxaan leenahay ilaahay u naxariisto xaasaskoodii yeelkoodii qaraabadoodii waxaan leenahay ilaahay samri iimaan ha ka sii ummadda Soomaaliyeed oo ha naga wada siiyaan ay raago iska baxnaaday ii kale waxaan iska balogay qalin daaray way dambajinay إلهي وحلانا ليرتاس صوماليات gacanta ka xaq daran lagu dilay siyaasadda lagu dilay wadamadu ay soo tageen lagu laayay shirqoolka ilaahu naxariistaan leenahay xaga kale waxaan leeyahay ciidanka geesiyiinta aliyada liyu boolis xaga kale waxaan leeyahay hambaliyo ayaan leeyahay guushay gaadheen waxa kale ogaataan dhalinyarta Soomaaliyeed ciidankani saddex meelood baa laga soo kala qaaday ciidankan meel waxa laga soo qaaday jasiiradda la Kudha ayaa laga soo qaaday Jubbada Hoose qayb kamid laga soo qaaday qaybna waxa laga soo galay adu Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ayaa laga soo kala qaaday ciidankan qayb waxay ka timiday Soonaha Bu'aala ayaa laga keenay qaybna Soonaha waxa laga keenay adu u dhaxaysa xagar iyo afmadoonta u dhaxaysa ayaa laga keenay qaybna waxa laga keenay Hiiraan baa ciidanka laga keenay ya qaybna Muqdisho iyo nawaaxigeeda ayaa laga qaaday saddexda meelood baa laga qaaday Muqdisho gobolka Banaadir meelo kamid ah ayaa laga soo ururiyay ciidankaas qaybna gobolkaasi Hiiraan baa laga keenay Beledweyne Sooneeda laga keenay labana waxa laga kala keenay Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ciidankaasi afarta gobol bay ka kala yimaadeen waana la soo wada ururiyay dad dana gooniye leh oo u diidan dadka Soomaaliyeed reer Somali State nabadgelyada inay laayaan ayaa dadkaas ka dambeeyay ciidamadaasi waxa loogu talagalay yaatay weerarayay ma ahayn yaatay inay weeraraan laakiin ciidanka Soomaali State ee gobolka Afdheer jooga ama xuduudda ku dhararan in la mashquuliyo la doonayay ciidankaas labada degme iyadii aato marka la weerarayo waxa la doonayay ciidanka xuduudda jooga inay baneeyaan oo ay galaan oo gobolka Afdheer halka ay ka galaan gobolka Afdheer hada taqaana wuxuu isku xidhaa gobolka Oromada iyo Soomaalida waana dhul buuraleeya ciidankaasi markaas kaartadaas ay dheelayeen sirdoonka dawladda Masar ayaa meesha ku jiray oo tababarka ururinayay sirdoonka Soomaaliya qayb u ka yahay sirdoonka ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa qayb ka ah iyo sirdoon ciidanka Masaaridu leeyahay labadaas iskaashanaya anigu siyaasadda been ka sheegi maayo wixii aan baaritaan ku soo sameeyay baan sheegayaa wadamo kale oo magacooda naadi sheegi karayna way ku jiraan inta horta inay ogaataan waajib dadka intaas ee kaartan noocaas oo kala dadka dhigaya shabaab kaartan noocaas kala ma dhigi karayaan marka waxaan idin sheegnay dawladda Masaaridu Muqdisho ay timiday inay bankiga ka furatay inay ciidankooda joogan intii khilaafka uu jiray madaxweynaha Farmaajo iyo ninka la yiraahdo uu jiray ra'iisul wasaare Rooble aad bay u joogeen because controlka Soomaaliya khalkhal baa ku jiray intii dagaalku uu socday khalkhal baa ku jiray Muqdisho meel laga wada adeeganayahay habeenkii Xasan la doortay laba ku ahaydna waxa idin sheegay oo markii bay idin sheegay inay Tigreegi joogaan habeenkii horeysay Xasan u hambaleeyeen ay sheegeen dad walaala inay ahaayeen Soomaaliya iyo Tigreegu nabadgelyo ku wada noolaayeen 20 sano wada joogaan bay Tigreegu noo sheegeen Tigreegu waxay noo sheegeen dad walaala inay ahaayeen way u soo hambaleeyeen intaas inta la dhixina qalbi dhagax oo socdaayay qalbi dhagaxna maaday baa ka dambeeyay adeerkay labadii adeeraday baa socday oo campaign iyaga lagu galay maaday iyo qalbi dhagax oo socdaanay meesha way yimaadeen ururada Tigreeguna way joogeen horena waxay noo ogeeyay Kismaayo duleedkeeda in lagu hayo ciidanka madoobe ka mid ahaayeen ciidanka Tigreega markii la ururiyo ka dhigista lagu sameeyay dhamaan Kismaayo soo galeen 5,000 oo ciidan ka badan ayaa soo galay Kismaayo 5,000 oo ciidan oo ciidankii Tigreega markii hubka dhigista lagu sameeyay abiye ku sameeyay 5,000 baa soo galay marka dadka waxa la tusayaa sawir shabaab waa la tusayaa oo cabsi waa la tusayaa laakiin xaqiiqda dhabta ana idin sheegaya xaqiiqda dhabta ayaan idin sheegaya
حسن هبينكي لا دورتينا صاحبكي أما وادي شقي meeshan markaa Soomaali isteed dadka weeraraya ay Soomaali isteed loomu weeraraya Ethiopia loo weeraraya Ethiopia la diro damjidii oo yaarga ciso oo socdeen sirdoonka Soomaaliya ayaa gacan ka geysanaya oo dhulka yaqaano masaaridu laakiin satellite ahaan bay ku hagayaan iyo istikhbaarad ahaan basaasnimo bay ku hagayaan marka ay Masar waxay isku dayaysaa maadaama Maxamed Cabdullaahi Farmaajo booski ka baxay oo Xasan Sheekh Maxamuud yimiday حسن شيخ محمود درس شيء كشقين ودن صومالي ودن كشقينين هذا الصومالي يشتري نقطنا كشقين مايو حتى يدن صومالي نقطنا كشقين مايو قيبنا أنا كدولة يد الصومالية قيب كاين لبربريو الصومالي يشتري إثيوبيا حقيقة مركزات كيان للشاوريرين يا لوران الشباب ميس الشوك الشباب على مجرى الشباب كل واحد لو شقيستم مع على السوية عيدا كاسنا وصايد الشيء عيدا كي تجرى مركي إثيوبيا هو كدي جيسي مدوبة يسوى الديرين كسماية تجري سراكيش اللي بتشوفته سكتون كودي بتشوفه يا كسماية عيدا كقيب كم إذا لقى السوق على جزيرة كودا أفمد السونية إذا لقى السوق على كودين ما يورن ما يوا قبيل كيا كون لو كنتوا لي أنا وقبيل كيا يا كون ما شاء الله السوق على أنا أسكله وديان كيا كون لو كنتوا لي أنا وقبيل كيا تاس بواحد كان يصير عدالة أو كشقان وحكى لك شقان كون لو ويرد أنا وعرير كيا كون الماشى لقى السوق على وعرير كيا ويسلا قبيل كيا جوان مركا لما ورن كرا قيب نو تاجر يا داني ويسو قبل شو بدو أصلا أنا إسكاله أفنر أنا إسكاله دت كدجنا كون نوال مدرسة كون نوال مدرسة مركا دت كسياسة ملا حكم كيجو لهذا مولود بنات دقين تلقي بحاجات دقين حاجة تلقي بدقين أنت أين الوقت واجب عليك مدوب النمبر 1 بكياي هذا الشيخ محمود بعيار تشليا ما الصلاة أستريا نبى سبيت على تشليا وسركان نبى سبيت إن كم أن محلا أن مساردا مركب حلنا مصطفى عكر عرض الشباب وين تاي تهوى حكور يسوق ولا كيسان يا ديار درونا بالغو صوري سندقيدا أي دقين عيدا قليو بوليس ديار بالغو صوري لغو صوري عيدا مدالكي دقين ديار درونا إيديكو ولي مارتين انت لصوص صوري عيدا ميلي دقين ولا دي شقيني يبدا لغي شقيني سردونك الصوماليا كونفر قلبدو جوغا كمساردونا ميل مقوشو جوغا ميل كستو جوغا بيكوز مقوشو واحد جوغا سردونك عالم كودا با جوغا wadamada xarta intooda badan siddoonkoodii oo dhammaystiran baa magaalada muqdisho jooga muqdisho waa meel nin kasta uu ka adeegto way qof kasta oo dunida jooga ka adeegta ma dhacaynin intuu madaxweynihii hore joogay maxamed cabdilaahi farmaajo waddan dariska in laga weeraro soomaaliya ma dhacaynin qof soomaaliyeed in soomaaliya lagu dhibaateeyo ma dhacaynin cilaaqaad in dadkaas soomaaliyeed dhib loo geystana ma dhacaynin markaa dadka soomaaliyeed xasan waxaan leenahay waa inaad fahanto 20 milyan oo soomaaliya meeshan degan baa leenahay xasan sheekh maxamuud iyo maa salaadow إثيوبيا هذا دولة السودان بالغ ويرري هالك لغا ويرري ما 20 مليون oo ummad Soomaaliyeed oo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka weyn oo ka dad badan ayaa degan malana marka kuwan iyagu afkar tumanaya dirbaanka tumaya beenta sheegayo waaqicu ka aadin sheegay weeyaan sirdoonka Soomaaliya maanta gacanta waxa ku haya sirdoonka Kenya iyo sirdoonka Masar baa ku haya sirdoon xori ma jiro xogtii sirdoonka Soomaaliya qaybna Kenya loo dhibay qaybna waxa loo dhibay Masar baa loo dhibay sirdoonka Soomaaliya markaa waa maleeshiyad maanta lagu shaqeysanayo beenna meedii sheegayo kuna xadgudbi maayo ma jecel askari Soomaaliyeed inuu ka xadgudbo sirdoonka Soomaaliya maanta gacanta waxa loo galiyay qaybna waxa gacanta loo galiyay Kenya qaybna waxa gacanta loo galiyay Masar baa gacanta loo galiyay totally sirdoon Soomaaliyeed maanta ma jiro xaqiiqda dhabtina waa taa haday sirdoon Soomaaliyeed jiraan maanta muqdisho moobeel lama dhaxmari karaysid ciyaala weera ku dilaya wixii la doonaa lagu sameeynaya dad baa la aftuubaya gabdha yaryar baa muqdisho laga aftuubo istixtaatum jira la aftuubay maanta marka Mustafa Cagtar waxa leenahay xuduudda Soomaaliya ay la leedahay ilaa Djibouti marka ugu horeysa dad talada qaadaysan waa inaad xidhaan baleedahay wariyaan fiideo gaarsiin dirish shirkadaha Soomaaliya shirkadaha waxa leenahay Mustafa Cagtar anaga Itoobiya waxa ma naga gelin meesha loo socdaana waynu garan karaa ceelasha shidaalka ee la gubaa la rabaa malaayiin reer Soomaaliyeed in la barakiciyaa la rabaa malaayiin reer Soomaaliyeed in la barakiciyaa la rabaa dagaalka yeedii aata lagu qaadayna ma ahayn ujeedada la weeraro yeedii aato maadaama laba saldhig ay ciidanka liyu booliski yeedii aata gobolka Bakool ku leeyihiin ma u suurta galayso nimankan qaswadayaasha ee Tigreegan iyo mucaaradkan sootay shabaabkan ma u suurta galayso inay Itoobiya gudaheeda ee Soomaaliya galaan marka dagaalka labada meel digba lagu bilaabay
qarax iyo sidii caadada lagu bilaabay waxaa weedaartay 22 baabuur ayaa weedaartay markii gidaarka liyu booliska ay miinooyin ku qarxiyeen labada xero la weeraray dagaalku wuxuu ka socday ilaa 12 saacadood buu dagaalku meesha ka socday intii dagaalkaasi socday 22 tiknika baa Somali State galay 22 tiknika ayaa gudaha u galay 22 ka tiknikadii waxay wadeen markay meesha dhaafeen xuduudda markay joogaan wadooyinku way istaageen meel bay istaageen dhul ilaa 20 kilomitir bay istaageen samaysaa u socdeen miinooyin bay dhigeen si aan looga dabaymanin wadooyinkii miinay ku gooyeen marka labada degmee la weerarayay iyadii aato ee gobolka Boqol ujeedadu wuxuu ahaa kaliya in loo ogolaadaan gudaha in ciidanka xuduudda jooga la mashquuliyo xaqa lagu mashquulay ahaa kaliya xuduudda loo banay wayna dhacday taawaan idin xaqiijinayaa waxaan halkaa arrin soo qoraya mayna gelin Somali State ma gelin waa been Somali State way galeen dhaawacna way geysteen dadna way dileen labadaas saldhigna waliba way qabsadeen ma iyadii aato way qabsadeen because goorta ciidanka la weerarayo goor waxay ahayd iska waabariye bay ahayd way galeen wayna qabsadeen labada xerana waa lagu laayay tiknika fara badanna waa laga gubay adigu rag fara badanna waa laga hayaa liyu boolisku ay qabteen baa jira dib ugu soo rogaal celiyeen laakiin ana taayidin cadeynay labadaas saldhig ee waaweyn way qabsadeen gacanta ku dhigeen because hubka ay wataan liyu boolisku ay wataan iyo hubka nimankan wataan ismale anu reer Somali State xaqiiqda ay sheegay baasha been kama sheego hubkii dawladda Soomaaliya loo soo dejiyay kuwii Kenya kuwii sirdoonka masaaridu keeneen nooc kasta wataan laakiin wiilka Soomaaliga dhashiika qorigu wato liyu boolis dhashiika ugu weyn raga halkaa jooga dhashiika weli suu inuu wataan weli ma maayo laakiin liyu boolis waxay ku dagaalamayaan khibrad iyo dagaal badan oo yaqaanaan iyo muddo badan ay ciidan ahayeen iyo geesinimo ay ku dagaalamayaan geesinimo ay ku dagaalamayaan laakiin hubka ay wataan nimankan ay masaaridu dabada ka riixayaan iyo ciidanka Soomaaliya ka dabada ka riixayaan isku ma hubkii dunida ugu dambeeyay asli la wataa amisom kuwoodii waa la wataa kuwii Kenya la wataa Soomaaliya kuwii loo keenay waa la wataa waxba qarin maayo marka intii dagaalkaasi labada degme ka socday iyadii aata ka socday ciidankii loo diyaariyay inay galaan afdheer inay galaan gudaha ay u galeen 70 kilomitir bay Somali State socdeen 70 intii dagaalka socday intii la soo afjarayay dagaalka la soo afjarayay way socdeen 22 gaari oo tiknika ayaa galay iyo baabuur waaweyn oo la socotay ku wateen raashin ku wateen iyo ku wateen hub wateen laakiin tiknikada meesha gashay waa 22 baabuur bay ahaayeen oo tiknika 22 dadna saareen 22 ka baabuur ee tiknikada waxa weelinayay baabuurta xamuulka ama looliga kolba soo taqaanaan oo waaweyn anu ma sheegi karayo kullee waxa 22 kaas wadeen laakiin haddaan aqliga yar kaashado dawo iyo cunto iyo raashin iyo dad bay wadeen marka wiilasha la Somali State ma galino been baa dadka u sheegaysan way galeen 70 kilomitir bay gudaha u galeen 70 kilomitir bay gobolkaas afdheer galeen gobolka afdheer meesha ay nimankan u socdaana waa dhul buuraleeya wuxuu isku xidhaa gobolka Oromada iyo gobolka Soomaalida waa silsilad buuro isku xidha weeyaan haddii halka ay galaan oo suurta galaana wax ka saari karaya ma jiraan ilaa awood ka saari karaya diyaaradna waxa ma yeeli karto taangina ma gali karo laba nin oo lugeynayna ma kalaas taawaan idin cadeynaya laakiin ma cadeynaya buurta inay gaareen laakiin waxaan idin cadeynayaa 70 kilomitir inay gudaha Somali State galeen waxaan arkayaa saxaafad ka hadlayso leh xuduud ugu celin ciidanka liyu boolisku labada xereentay qabsanayeen iyo inta iyagu istifaaca ku jireen ay dagaalamayeen nimankan markiiba way gudbeen soo noqday marka reer Somali State oo yaa la idin wareerinin xaqiiqada ana idin sheegaya ciidankaasi faraha badan leh soo galay waxay isugu jiraan 100 nooc niman la yiraahdo TPLF oo Tigray ah oo Kismaayo laga soo qaaday adeerkay Maxamed Madoobe halka ku hayay weeyaan waxaana maal gelinaya dawladda Soomaaliya iyo dawladda Masar baa maal gelinaya dawladda Masaarida sirdoonkooda ayaa wada iyaga jidka tilmaamaya halkay marayaan la wada sirdoonka Soomaaliya wada lacagtana dawladda ka ayaa bixinaya Imaaraad iyo kamid ka ayaa bixinaya sida horta inay la socotaa weeyaan ciidankaasna waxaan idin cadeynaynaa isbaaysanaya mucaaradka reer Ethiopia shabaabka wixii iswato dhan Tigreegi inta oo gacayro u shaqeynaysa Masar weeyaan waan cadeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad ciidanka ka cabsan maayo way soo galeen 70 kilomitir bayna gudaha u soo galeen
شبكة حوار ما يسينا تدباتن كيلومتر بجودة أو قلان لكن ما عدين كره سلسلة بورلة يسكح ده قبل كالصومالية ورمضان أنا ما عدين كره لكن تدباتن كيلومتر بجودة أو قلان لكن نسيبنا بورا لفتو ده عيد الصومالية جوجا عيد الصومالية أيات جوجا أن أرنتان الدولة المصارية هي دولة الصومالية مسؤول كاو المشا كده عزيز الشيخ محمود ما صلاة مسؤول كا أنا قاعد له يجا مسؤول كا وعلى وضعنا ودقال كنا دقال سياسات يدي أعتر اللي بتشيرين إذا كحدود إلى اليو بوليس كي الله مشغولية أي عيد ويكون سوق البلاد حدود لبنيه برجع دولة مصر هي دولة الصومالية مسؤول كا أنا قاعد له يا هذا الشيخ محمود يا ما صلاة با وكيل كا وين الصحون ساعة ده استفاع ساعة ده استين أنا أروح كم بقنا إلى ما كم بقنا يا إثيوبيا الله كلا درنا والله قلت لك لي ورانا وايد كديني فرماتش إنه أفريقيا إلى أن ساكو كرتا فرماتش إنه أفريقيا إنه بتجري كشقين إنه ساكو كرتا إنه ضاعها صادق إنه أمين إنه ساكو كرتا إنه سو أفريقيا إنه ما ذو كرتا تاي صومال إنه ما ذو كرتا تاي إنه ولا مركا وحبي على اللي وريني الشباب يلا يرني أدير كان أحمد مدولة إذا كنت تقرأ كعنت كواي وكسماي وشوفه وملك استلواي أما مثلا يا خلانا بقول قور ما يدوكو شغالين كسماي وشوفان إذا كي تقرأ وشوفان because مركي أبيه ور كقاعد قبل كتقرأ قبل كقاعد قبل كقدر إذا كي لبس سارة تقرأ وشوف كسماي وكاره حدود كوي شوفت تقرأ أنا كسماي ودي مدين يا إذا كي حدود شوفوا لأن تقرأ كسماي شون شان كون أوكس أي شوفي جروب كي عبدي له ويعيد كبدن بشوفي وكذا مركز شان تأكل مالك تكون بالسيدينيا قال جدود قيب بشوفت برادر بيشوفان ما كسر غيا يا مركز تأدير كان أحمد مذوبة قيب وكيان ما على قرنيا أحمد مذوبة نوحوين ما يرو ماينورتي كي وشغال لكن كي اللي منه دول كي ينو خلق القليل وتد كي ينو وارك وقال كي اللي منه هذا يكون شبلان شوين قد يو هذا يكون شبلان كي اللي منه دباتين وقستو هذا الصومالي سيد كون شوين قف صومالي دباتين وقست كي اللي منه لكن وحدين عدينا يا وندين عدينا يا بقول كيو بقولين عدينا يا ما صارت سردونك الصومالية تريان نبسكت الصومالية تريان سردونك مصارين إنه يقدم بيان نقالة كوب بحنيان يا أن يجوا هاجيان تو برضه بحنيان لو بلود بلغت شو مركز على مقصود سوني ده حتى هو يشوفان because خلق الكي من الروبلا يا مركز يسقفسين فرماتشو فرماتشو إن كان بيكون شروها عربو فراي كب بحنيان مقصود شوي والله صحيح مركز عادي بقى الشيخ أبو سعطاء ذلك محمد مذوبة قيد وكياي أنا ودنت أوليه مذوبة كرر ما يسوي ودنت حسن وان كرر ودنت أوليه حسن بريتشين تشين شبوه ذا أبيه جروب كيسا إلا نافيا ماشي دوني يعني مصاري ودلالك بيانيل كا أظن دجال بتشر كل مصر إثيوبيا غونيا إنه لكن شقتها كبلين هذا الصومال لاي أنا جو حنا قلي متشران أنا جو حنا قلي كريه تذكر الصومال يصير دقنين نبقى يكون ولادان الله بركة عينين dhulkooda inay joogaan nabadgelyada inay ku noolaadaan kaliya ayaan ta kaleenahay kaalin saalo anu xaggeen joognaa ama ingiriis baan joognaa anu maraykan baan joogaa ya marka fariintan waxaan u diraynaa madaxda reer Somali State ee madaxweynaha ugu horeeya Mustafa Maxamed Cumar fariintaana Mustafa la gaarsiiyo shirqoolkan Somali State lagu kala kaxaynayo magaalada Jigjiga lafteeda qayb baa jooga magaalada Jigjiga lafteeda xubno firfircoon baa jooga oo magaalada Jigjiga jooga magacyada baxay ragganna waxay sugayaan ragga gudaha ku jiraayay magaalada Jigjiga joogay dadkan xuduudaha ka soo baxaya ee Kismaayo iyo gada qaybo kamid ah iyo Bu'aale Banaadir iyo Hiiraan laga keenay sugayaan rag baa Jigjiga diyaar u ah dadkan galaya dawlad baa u dhisan haday federaalka tahay Somali State baa dawlad baa u dhisan hal arrin ay Soomaaliya ما شبكة حو ما ولا ما ولا شبابك وحلا يسكدق ويان والله تشيلا ويان وإلا ساعتها أنت قلنا الشباب أرنت عصيم مش يقنين
laakiin niman kale oo macaarada ayaa ku faanay oo magacooda halka idinku sheegan ayaa ku faanay arrintana waa idiin sheegay isbeddelku maalintuu dhacay baa idiin sheegay waxaa dhici doona iyo xaalku siduu noqon doona waa idiin sheegay inaan bariga afrika nabadgelyo sii ahaanayna waa idiin sheegay xasan dhaqdhaqaaqiisana waad ka garanaysaan siday wacyiina waad ka garanaysaan dowladdu way sameeyeen ceeb maaha hadday soomaaliya u aragtay inay abiyey bedelaan ama agtan ay bedelaan waa la garan karaa waxba ay isku toosan qalbi dhagax baa halkay noogu yimiday maaday laftiisa halkan buu yimiday macaarad baa jooga magaalada jigjiga gudahooda jooga waxbaa isku beegan marka waxaa dhici kartaba maaday xitaa inay heshiis la galeen maa salaad yaa dhici karta xasan sheekh maxamuud oo la rabo bal intaan xagga isha la gaadhin si gaboodfal looga helo mustafa horta in meesha la dhaafiyo uu ku fadhiistay ninka la yidhahdo maaday kursiga in loo dhiibo axmed madoobiye maaday isku xidhmaan waa laba nin reer cabdillahi isku xidhmaan loo dhib yareeya markaa hadduu maaday waddanka qabsado oo meesha dee uu ku fadhiisto oo dhacdo dhici maysaan u malaynayahay waxaa dhacaysa inuu madoobe toos iyo xasan sheekh maxamuud ugu adeegtaan ayaa dhacaysa markaa mustafa maxamed cumar waxaan leenahay mustafa xuduudda ciidanku way isku filayeen bal gudaha kuwa jooga jijiyo dhagax buur iyo qabridaar iyo qabar bay xore mustafa cagtar waxaan leenahay ilan gumeedada gobollada ku dhex jooga ee macaaradka sheeganaya ee caloosho shaqaystayaasha iyaga tallaabo marka hore ka qaad baan leenahay markaa tallaabo kuwaa ka qaado kuwana waa laga qaadayaa ciidanka liyu booliskana waxaan leenahay aad iyo aad baad mahadsantihiin sharafta iyo karaamada dadku leeyihiin iyo lagu hurdaayo idinka weeyaan ya ogaada xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe iyo maa salaad ayaa weeraraya somali state ha la ogaado iyo sirdoonka masaaridu ay leedahay baa toos uga shaqaysanaya waxaanad ka garanaysaa safaradii uu tegayey ee xasan sheekh maxamuud iyo shirqooladii la dhigayay baad ka garanaysaa iyo meeluhu soo marmaraad ka garanaysaa markaa waxaa leenahay reer somali state waan ogahay ciidan ethoobiyaani mayda la joogaan laakiin ciidan boqolaal kuna baad haysataan hal istifaaca leenahay istifaac baa leenahay mustafa cagshar waa lagu soo duulay waddankan sirdoonka masar baa ku soo duulo waxaan ka dambeeya baaritaan dheer baan samaynay horena waa nuga hadalnay masaarid inay wadda halkaa ka samaysanayso ciidamaha sii joogay jubbaland sii joogay tigray ah kuwo kaloo macaaradaa sii joogay shabaabkiibaa jooga oo la adeegsanayo markaa mustafa cagshar waxaan leenahay xuduudda waana xidha baan leenahay xuduudda ilaa jabuuti xadiidka laga gelayo ilaa xuduudda gobolka gado amarkaa waa inaad mubashir dubad caawa ku dhawaa hogaanka nabadgelyada waxaan leenahay baarlamaanka waa inay fadhiisiyaan baarlamaanku waa inay ansixiyaan in xuduudda soomaaliya la xidho habeenkii markay 7 fiidnimo gaadho ama 6 fiidnimo waa gobol kastoo ka mid a Soomaaliya oo bandoo laga dhigo waa dhaqdhaqaaqa shacabka waa in la joojiyaa leenahay reer Soomaaliya oo madaxweynaha Soomaaliya waxaan leenahay dhagaa Mustafa furo baan leenahay waa in bandoo ku soo rogtaan baa leenahay dhammaan reer Soomaaliya 11 gobolba waa in lagu soo rogaa bandoo baa leenahay 7 fiidnimo markay noqoto magaalo kasta qof kasta waa inuu gurigiisa ku jiro sida magaalooyinka waaweyn oo dhan waa in 7 fiidnimo dadku seexdaan xuduudda Soomaaliya la leenahay ilaa Djibouti-na waa in la xidho shacabka Soomaaliya si ay ku nabadgeli karaan oo kale ma jirto marka hore bandoo waa inay dowladda Soomaaliya soo ridaa isla bari lafteeda ku dhawaaqaan bandoogaasi waa inuu dhaqan galaa xuduuddana waa in la xidhaa baan leenahay Mustafa Cagshar waa in la xidhaa baan leenahay ya wixii Soomaaliya ka soo galayna celiya xitaa hadduu Soomaaliya u dhashay celiya xuduudda waa inaad xidhaan baan leenahay weeraan 45 cisho ama 2 bilood xuduudda waa inay xidhnaato xuduudda xidh baan leenahay su'aal soo celinaad Mustafa Maxamed Cumar waxaan leenahay xuduudda waa inaad xidhaan ilaa gobolka Cafarta ilaa Gedo inta la leeyahay xuduudda waa inaad xidhaan 11 gobol waa inaad bandoo ku soo rogtaan 11 gobol waa inaad ku soo odanay waa xaqiiq waxa sheegayna walaal been maaha iyadoo dhicin baan odanay ka hadlayna waa xaqiiq عادل شيخ محمود يما صلاة بكتب بيا يا أذيرك أحمد مدولة كتب بيا إلا ويرو إذا كاسين بحال إلا قرني يا متشتو سو كنا في الله قرني يا متشتو بركة وين كان حسن شيخ محمود بقالي يما صلاة بقالي وسردون كمصاري سردون كالصومالي بقالي وين كان هورنا وين وقدك نوح على نوان وشغلين سد حاليا بركي حسن شيخ عن شيء مقصين يسكور صريان ciidan kan aatayeen lagu weeraray waxa laga kala keenay Jubbada Dhexe Jubbada Hoose gobolka Banaadir Hiiraan intaas laga soo qaaday galgudud yar baa laga soo qaaday anagu Soomaali baynu nahay Soomaaliyay wixii loo qarsooni ma jiraan dhaxdeena way soo ognahay wixii loo kala qarsooni ma jiraan qofka Soomaaliga waa u qaadanin
qofka Soomaaliya jooga ama Somali State jooga ama NP jooga ama Djibouti jooga uu ogyahay hal qoys yar oo Soomaali dhaawanaay waxa ka socda magaalada Jigjiga waan garan karaa hadda waan la socon karaa gedaan la socon karaa Hargeysa la socon karaa garow wixii Soomaali dhexdeeda ka socda loogaanaya horena hadda aqli leeyahay waxa idin sheegay hada sheeg maxamed markii la doortay in olole uu ka socdo magaalada Muqdisho Tigreegii joogay abaabulayaan farxadaysan yihiin hambalyeeyeen baa idin sheegay Kismaayo waxa idin sheegay 5,000 askari inay joogaan adeerkay ku qaran maaya maxamed qabiil baan waa absame ku qaran maaya 5,000 baa joogay ciidankii cabdile ka soo ciidankiisina way joogeen 6,000 baa joogay jasiiradda ku dhaaba la geeyay buuraa lagu qarinay marka anigu qaran maayo ku qaran maayo kan waa mareexaan ninkan waa nin afsama ku qaran maayo qof kasto Soomaaliyeed waan sheegaya reer Somali State waxa leenahay waa la idinku soo duulay ciidan sirdoonka Masar baana weerar idinku qaadaya oo dawladda Itoobiya la dagaalansan sirdoonka Soomaaliya qayb ay ka yihiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud baa qayb ka dagaalkaas ma salaad baa loo soo wakiishay sirdoonka Masaarida iyo ma salaad baa wada shaqeynaya been ka sheegi mayno haddiina la xidhayo haddiina la qabanayo Muqdisho dhex joogna been sheegi mayno cadayntiina wali hadday sirdoonku noo yimaadaan way sheegaynaa wallahi way sheegaynaa haddaad Facebook-ayga dib u raacdaan waad arkaysaan habeenkan ka hadlayaan la Muqdisho isku ursanayaan taa waxa dheer oo daba socoto ururkii oo la falka qalbi dhagax baa yimid waxa kaloo yimid maaday ururkii oo la baa yimid shalay galabtii markii la weeraray Jigjiga ka degeen weerarka iyo Jigjiga ka digitaankoodu oo socday weerarka lagu qaaday iyo ato lagu qaaday iyo galiinka Itoobiya ay galeen kilagshaan ay galeen maaday markii saayir boorga jooga deegaleen marka waxa ku xigi doona kuwan oo lafto xabad iyaguna ka dhex bilaabay magaalooyinka ku xigi doona oo baraka waxa xigi doonta waa kuwii ya in badan baad reer Tolkayo aad yasnaydeen oo qaxooteedeen iibsigii baa bilaamaya muraysado ya marka Mustafa Cagjar waxaan leenahay laba talaabo ayaan anigu tala ku siinaya daayir guuleysay Soomaaliyeed ku siinaya waliba madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo hoggaanka nabadgelyada Mustafa Cagjar iyo Mubashir Dibad waxaan leenahay maadaama dadka labada ugu sareeyo waddanka tiin waxaa leeyahay xuduudda Soomaaliya ilaa Cafarta ilaa gobolka Gado marka uu koowaad waa inaad xidhaan xuduudda waa inaad xidhaan bandoona waa inaad ku soo rabtaan kuwa la dirinayaana shabaab ma aha shabaab intaas oo soo jooga shabaab ma laakiin shabaabku waa magac la qaato waa kiri la marsado ya dadka la dirinayaana waa Masar kacayarada soo adeegsanayana waa sirdoonka Soomaaliya la adeegsanaya ma salaad baa wakiilka ayaa uga Masaarida marka ma salaad ayaa weerarka ku qaadaya been sheegi mayno waan ognahay horena waa idinku sheegnay dhulkana waan joognaa waana la soconaa wixii ka soo socda horena waa idinku digo waxa idinku wari maalinta farmaajo meesha ka tagay hubaatee nabad dhibata baa idinku wari Soomaaliya nabad dhibatay idinku wari wixii idinku akhriin jireen baa socda wiilal Jubbaland joogowna fiiro biliis soo ciidanka Tigreega ayaa Oromada la qaadaya kilka shanaad la gelinayo Tigreega qof kasto fiideo soo diray lacag $1 baan u dirayaa qof kasto ciidanka madoobe meesha uu ka gurayo Kismaayo laga qaaday kilka shanaad galay shabaabka loo eebisay calanka madoobe loo dhiibayo aro caday waxa idinku hayaa shabaab inaan wallahi oo bilaaya caday waxa idinku hayaa Tigreega markii hubka laga dhigay ciidankii Tigreega gobol Gado joogay Kismaayo la wada keenay ilaa beledweyne ku joogay ilaa Bariya Bakooliya Gado ku joogay waxa la soo keenay Kismaayo la soo keenay adeerkii Maxamed Madoobe la joogay iyagoo ilaa 6 kuna ciidankii markaa Tigreega meesha joogay Oromadii macaaradkii calankii madoobaana waa loo talay deeskiina waa loo galiyay kabiina waa loo sameeyay waa islayadii marka ujeedadu waxay tahay marka ay galaan afdheer galaan in gobolka Oromada looga soo gudbo Soomaaliya gobolka Oromada qarxaan ciidanka Itoobiya xaq u soo jabaan Tigreega waa soo dhaqaan sid shakada horta noocaaween marka wallahi waan arki doonaa balde Xasan Sheekh Maxamuud haduu bedeli karayo dawladda Itoobiya Soomaaliya State bedeli karayo heshiiska kale jira waxa weeyaan maaday xarana la geeyay ururka Olaf markii halka yimaadeen ra'iisul wasaare u tageen madaxweyne u tageen ra'iisul wasaare u tageen xarana ayay tageen iyaga laftooda ururka Olaf heshiis baa la soo galay waxaana laga dhameeyay xabad inay bilaabaan
ayaa loogu talagalay tigreeguna halkaa ka bilaabaan kuwana gobolka oromadu maadaama ay dad muslimiin yihiin inay dhex galaan oo afka loo duubto oo la isaga dhiga niman diin wada ya waxaan leeyahay laakiin madoobe adeerkii axmed madoobe horta markii kugu dambaysay adiga weeyaan xasanna waxaan leenahay guulaysan maysid maa salaadna guulaysan maysaan baa leenahay because ummad soomaaliyeed oo islaama ayaad ku duusheen rag soomaaliyeed oo dhibaato geysan oo dhulkoodii ilaalinaya oo ummad soomaaliyeed ilaalinayana waa la laayay laakiin layntii la laayay waxaa ka dambeeyey inayna kabaha la dulmaraan aarsadaan hubka dhigis ku sameeyaan qaqabtaan 180 maanta waxaa lagu hayaa maanta waxaa la geeyay dirba goday magaalada goday 180 dirba nimankii baa lagu hayaa xiniya laga garaacaya caddayntaan anaa idiin haya sirdoonka soomaaliya oo adeegsanaya sirdoonka masaarida baa ka dambeeya arrintan maamulka jubbaland maxamed madoobe ayaa isna ku jira waa kaarta silsila isku xidhan weeyaan waa silsila isku xidhan weeyaan markaa 5,000 6,000 ee jooga jubbaland jooga Kismaayo jooga adeerkay maalinba ku busii deeraya axmed madoobe markaa 6,000 ee tigreeg iyo oromadii mucaaradka direyskii waa laga bixiyey calankii madoobe baa loo tolay shabaab baa laga dhigay ma maqlaysaan markaa shabaab wax leeyahay ma jiraan yaa laydi wareerin isweydiiya yaad iyo aata marka la weerarayo shabaabka waa naqaanaa yeedii aata dhowr goor bay isku dayeen oo hore way iska laabteen laakiin yeedii aata weerarka lagu qaaday ma ahayn in loo socdo in la qabsado laakiin ciidanka xuduudda jooga gobolka afdheer jooga inay baneeyaan baa la doonaya wayna suurta gashay because labada xeero markii weerarka lagu qaaday ciidanka xuduuddii way baneeyeen iyaguna orod bay ku galeen si u socdeen bay galeen beryaana way socdeen 2 bilood ka hor bay socdeen iyagoo lugeynaya ay marayaan iyagoo culimo ay marayaan iyagoo barakacyaal bay marayaan waqtigan xaadirka waxaa la iska dhigay inta 4 orgin la kacaysa dad soo barakacay waa caadi gudaha Soomaali State-na weeraan 3,000 oo nin baa jooga allah salaam urax marka waxaan leenahay Dr. Moshir Dubad iyo injineer Mustafa Maxamed Umar xuduudda hal xidha baan leenahay marka ugu horeysa xuduudda waa inaad xidhaan marka labaadna gobollada waa inaad bando ka dhigtaan habeenkii qofkii qaylaya gurigiisa ha ku qaylo qofkii shukaasanaya gurigiisa ha ku shukaansado 11 gobol ee Soomaali State waa inaad bando ku soo rogtaan markaan saayid leeyahay aniga xumaan meega laakiin shacabkeenu u badbaadaan la rabaa magaalada Jigjiga waa magaalo dad badan weeraan 4 milyan baa ku nool 5 milyan baa ku nool haddii 4 milyan la soo dhex galo dadkeenu qarax ma yaqaanaan dadka Jigjiga ku noolay dad qarax yaqaana maaha haddii suuqyada qaar Jigjiga kala bam la dhigo hadda dadka Soomaaliya jooga way yaqaanaan qarax laakiin dadka reer Soomaaliya qarax ma yaqaanaan saddex bam haddii la dhigo 2 milyan baa ku dhagaanaysa ama weeraan 1 milyan baa dhimanaya marka dadkaas si loo badbaadiyo waa la soo galay ilaa idin gudahana waa lagu jiraa magaalo kastana waa lagu jiraa gudahana waxa jooga niman mucaarad sheeganaya oo dawladda mashquulinaya gudaha Soomaali State-na waxa jooga niman mucaarad iska dhigaya oo Mustafa inay mucaarad ku yihiin iska dhigaya oo ajantayaal kala wata marka Mustafa waxaan leeyahay wiilasha ogaadeen Jigjiga dhaxaraya dhagax buur dhaxarayay iyagu uma socdaan siyaasadda Soomaali State laakiin qandaraas bay soo qaateen waddanka in la burburiyo baa leenahay wiilashan mucaaradka sheeganaya jooga wallahi Soomaaliyeed anu xil Soomaali State kama rabo wasiirnimo kama rabo baarlamaanka kama rabo madaxweynaha waxaan ka rabaa ma jirto laakiin anu waxaan rabaa Soomaali State inay nabadgelyo ahaato ay asturaadaan cawradooda ku asturaadaan nimankan mucaaradka sheeganaya ee jooga Soomaali State ee waliba ogaadeenkii qandaraas bay soo qaateen sheekadu Mustafa way ka weyn tahay yaan loo qaadanay dadka inay mucaarad Mustafa ku yihiin laakiin waxa loogu talagalay inay Mustafa mashquuliyaan baa loogu talagalay oo shaqada dawladda ka mashquuliyaan oo shaqada amniga ka mashquuliyaan xuduudaha ka mashquuliyaan mar buuqaan mar yiraahdaan waan banaan baxaynaa reer Soomaali State haddaad dhageysataan dawladda iyo shacabka wax badan baad fahmi doontaan muddana way socotay yaan loo qaadanay markaa mucaarad dalaya loo qaadan yaan loo qaadan dadkan mucaaradka shaqeeya Jigjiga joogay ee dhagax buur joogay tolka naay eelka dhaadheer li qandaraaskan waddanka lagu burburiyo qayb ka yihiin qayb waxa loo ballan qaaday inay madaxweyne meesha ka noqonayaan marka Mustafa waxa leenahay isbedelka yar hal la ilaaliyo waddanka ilaaliba hal la ilaaliyo baa leenahay waddanka waa lagu soo duulay hal la ilaaliyo kuwan mucaaradka shaqeeya kaba la dulmara qarxiya xuduudda xidha ta shacabkiina badbaadiya qarax dadkeenu iyo qaxuma taagayaan hadda waagi hore waxaa la odhan jiray Mustafa Cagjar ka hor marka la arka nin ogaadeena ama nin afsamaa
ورتو حقويس كدي واقع عتيبان الوجه واقع عتيه حقوني قالوا صلاة حبة وقالين صلاة الأركود عقدر بقالين شرين عبد مركو شرين وقالين كي يتشد واقو عقدر بقالين شرين عقد سريدة مركا ضد كارلو قينا يا مركا وعلى شرين عور حقيقو صلاة تي يا ردعم بالنا مستوى أمر تاصلا لا نستيه عقد يتشوان كي يدي لوغ نقول إبليس عقد يتشوان كي دركا وكوكورين يلما هنوحين يا عقدي يا ريت قاعية القدري يا ريسون نقوم مستبعك شنو ما الله شرفت إيراني نظامك إيراني ضدك إيراني ما لنا يا الله الله ساين قر حبيبي يا الله كوكو الله سواكما مستبعك شنو علينا مركا إسرائيلي شيكادنا واشيكا دير واشيكا ودموه وينكوشيران waxaan madoobe iyo ma salaadi hada sheekh maxamed dad lagu shaqaysanay weeyaan waa iska masaakiin madoobe waa iska basaas hada sheekh maxamed ma salaadi xil la weydiin maayo waxa loo socdo waynu garanaynaa marka balorda kuwa gudaha jooga xiriya ka saar cidiya ka saar meeshana wadamo ay ku jira mustafa ciyaartooyda kula yaraanin sharafta iyo karaamada ilaali inta aad dhex joogto ka adko marka hore baa leena mustafa anaguna waa kula talinaynaa wixii wadanka dan waana waan ku sheegaynaa يا وحي ودك تنو أنا مستوى وكوشين هذا اللي بيسويش because سلام بلوت كوربان هريت كان لي يسوي حد دوران شيء محمد عبد الله فرماشة كبعدي والدي الشيء واحد دوران يتوبي الله يقح دوران هذا الشيء سلطان كمصاري السعودي تجي الصومال هذا الشيء تقرأ إني جوان كسماء هذا الشيء يا إني كسماء تجي الشنكلو تقرأ هذا الشيء وعقل هذا الشيء القشاش إني جوان وماشي اللي قبل ولا شو رصدي dadka Soomaaliyeed islaamka ay dhulka deganay reer Soomaali galbeed la qarxiyana waa la dooriyo oo la baabiyo ya qarxiyada way iska bilaabi doonaan dad futa jilicsan baatiin dad adkaysan kara matiin hada dadka muqdisho jooga way bartaan haday mid gacantu ka soo goodiyo lugta gooda caadi waa la sii baadhanaya waliba ma maqlaysaa waryada ilka dheerayal muqdisho hadduu qarx meel ka dhaco waa sii baadhan waa sii soconaysa hada jeebada sii baadhatay meydkaas ka soconaysa يا كيلو لوكتك عندك ولا تصيب موبايلك كسي قاعدة يا يقول تكمله قليل يقول تكمله لكن نمن كي ناس قال لا لا هلا إسرائيل حدودنا حرة إسرائيل ركضوا برامبا قد جويس الكاري هلا إسرائيل يا ولي الطلوع على كوسيريا أنا اسكت دولتان تفرارق إلى توجسان ولا يقصوا دولة مصر دولة وين دولة يرماها مصر دولة وين ودولة يرماها فقول لها 10 مليون وين الإمارات لعبت كسر خالصة هذه إنت حاجة شدك على كذا عايزينك الشقدينا معها إذن كو سومالي استيلا يسكف لا بلكين إلاليا يا ما يدري على بينو ورن مقشات دوقر حكذا هذا قف قاعدين تسكوا لو شيء بسيط بعدين واتكسي سعون لكن حافظ الوين هلا بينا العلبي هلا هدي باشوي جو يسير تذكر حافظ الكل فتوي مين أركان مين ما يقالني يا والله السليم أنا ده بها العلبي هدي باشوي راح هدي تذكر بابس بمير ده حافظ من قاده يا برجع علينا يا مصطفى عمر حدود وانا الحد البري ان شاء الله باذن الله كامل وسلو حدود البري وانا الحد وين الا قبل كعفرته الا ماشي الى قبل كدو حدود وانا الحد علينا دقدق وانا لو خدو magaalooyinka Soomaaliya steeda dhamaan bandoo todobada fiidnimo bandoo lagu soo ragawayaan wiilashan macaaradka aan xiriyaha laga garaacay macaarad ma jireen xiriyaha ka garaac Mustafa qandaraas bay soo qaateen wadanka lagu burburinay wiilasha jijiyo dhex joogay iyo qabri bayciya dhex buur joogay qandaraas bay soo qaateen laakiin maanta waxaan leeyahay maalintii kursi laga sheekeeyay maaha 20 milyan ee reer Soomaaliya steed hal la ilaaliyo 20 milyan ee qof ee reer Soomaaliya steed hal la ilaaliyo wiilashiina ii soo qoray xuquuqda iska saarona kuwa la leeyahay afreer degan waa ogaadeen waa xawlaan ma baqashawreeda dadkan iyadii aata lagu leeyahay waa dad ogaadeena deegaankiina waa dad ogaadeena marka wiilka ogaadeen oo adigu bandhigaaga afkaaga horta ismaqlaano ereyga qofka aad ku oranaysan ogaada mid baan bandogareeyay
reer ka dheer la fadan ma la fale miiro marka ma salaad waxaan leenahay waan ku ambaleyna ciidankii ina cagjar inaad lugta marisay ma salaado waan kugu ambaleynayaa xasanona waan kugu ambaleynayaa maxamed madowna waan u ambaleynayaa inay weerar ku qaadeen liyu booliska laakiin jawaabtoodana anigu idin siin maayo laakiin jawaabta waxaa idin siin doonaa kolley abiye axmed baa idin siin doonaa ama mustafa cagjar baad keeni doontaan xaalkuna saasuu noqonayaa sii sheergareeya dhammaantiin gaadhsiiya mustafa cagjarna waxaan leenahay indhahaaga furaadaan bandow dadka waa inaad saartaan leenahay somalister dhulka reer somalister dhammaan bandow waa inaad saartaan xuduudana mustafa waxaan leenahay biliis xidh haddii mustafa aad xuduudda xidhi weydo adaa mas-uul ka noqon doona wixii meeshaa dad ku dhintay adaa mas-uul ka noqon doona because way wada qaynayaan suuqa jaadku markuu jijiyo soo dhaco 2 milyan oo qof baa isugu yimaada dhagax buuri waa la mid qabri beex waa la mid jaadku goortuu soo dhaco loobaad moodaa biyo cabaysa ya anu weli ma tegin laakiin waxaan arkaa video laga soo duubaan arkaa markuu jaadku soo dhaco videoyaan daawada la ii soo diraan daawada weli ma tegin anu ma arag gudaheeda garanmaayo anu meel la garanmaya hadda 2 milyan oo nin baa imanaya 2 milyan oo nin oo qoor dhaadheer baa imanaya oo jaadka iibsanaya markaa 2 milyanba waa dhimanaya ama 1 milyan baa dhimanaya markaa waa inaad bantooda saarto magaalooyinka waxba raashinka ayaan dadka cunaqabataynin laakiin xuduudaana aad xuduudda hala xidho magaalooyinka baaritaana lagu sameeya nimanka macaaradkaa guryahooda hala baadho derbiyada garaaca hub baa ku jira ciidamo ay gudaha ku haystaan wasalaamu calaykum waraxmatullah habeen wanaagsan waa islaamaya